السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل معنا وناتسن أخيارتنا دعوانيسا وحنا نقل سعتان channel كنا يوتيوب لمانة فاونديشن وحا إلى فديا وبرامج كيقلق يبقادن دونه محمد ديك سيرجيتو وإن بدن برامج لمانة فاونديشن يقلق يبقادن جري تضبط كان برامج كا وحكد وين هاي برامج دي هره دور سؤالود ayaa daawadayaasheena soo direen gmail kana ku soo direen su'aalahaasi ayaan weydiin doonaa una ka jawaabi doonaa waxaan idinka codsanaynaa idinkana inaad si fiican noola socotaan ugu horeyntii ku soo dhawow barnaamijkan su'aal weydiinta ah oo daawadayaasheena ay soo codsadeen su'aalahoodina inaad ugu jawaabi doontaan rajayn doono ku soo dhawow barnaamijka Abdiraxmaan aad iyo aad ugu mahadsan tahay maadaama maanta marti aan ku ahay channelkeena Lamane Foundation waxaan rajaynayaa insha Allah su'aalaha iyo inta hartaba inaan isla afgaran doono hadduu Allah wada loo ogolaado Sergito aad baad u mahadsan tahay akhyaaray waxaan idinka codsanaynaa subscribe iyo like iyo share iyo comment aan laga ilaawin barnaamijkana waxaad ka daawanaysaan Lamane Foundation dhowr su'aalood ayaan loo soo diray waxaan ku weydiin doonaa su'aasha ugu horeyso gabadhan waxay naga codsatay magaceeda inaan la sheegin waxay tiri waxaan ahay gabar 22 jir ah waxaan ahay arday jaamacadeed reerka iyagu waa danyar waxay soo doontay laba nin mid waa wiil 24 jir ah aan shaqayn oo jeeb maran laakiin jaceelku ku fiican midna waa oday 60 jir ah lacag badan leh oo taajir ah laakiin aan isleeyahay jaceelka iyo jiifkaba kuma fiicna waa sida ay su'aasha u dhigtay eedaday oo odayga igula talinaysa waxay igu tiri waxba ha ka baqin 60 jir waa marka ragga uu xoogan yahay marka in la taliyo ay soo codsatay Maxmed Deeq su'aashaasi inantaasi waxaan rabaa inaad ugu jawaabtid arintan waa arin guur ah Abdiraxmaan horta nolosha qofka banaadinka sideedaba ayada ma soo doonanaysa asaga ayaa doonta asaga iyada ma dooranaysa asaga ayaa doorta nolosha markii laga hadlayo waxay u baahan tahay qofka in badan inuu ka fikiro in badan inuu ka fiirsado in badan inuu raadiyo u baahan tahay qofka nolosha uu la wadaagayo dumar ha noqoto rag ha noqdo inuu in badan uu qofkaasi ay wada socdaan ay soo wada gartaan dabeecadiyan iyo dhaqan walbaba haddii qof 60 sano jiro inaad guur la wadaagto hadduu jooskaaga yahay waa samayn kartaa haddii qof oo yacni wax yaqaano aqoon leh inaad la samaysid nolol waa hadday jooskaaga ay tahay waad samayn kartaa cidna uma goono laakiin almuhiim waxaad u baahan tahay inaad nolol samaysid waa inaad isweydiisaa marka yaa kuu qalma adiga waa inaad weydiisaa qofka adiga kuu qalmo ruuxa nolosha kula wadaagi karo qofka aad isqaabili kartid si fiican gaariga markuu qalabkiisa dhameystiran yahay ama warshada markuu qalabkeedu dhameystiran yahay wax tayo leh ay soo saartaa haddii qofka nolosha aad la wadaagayso uusan ahayn qof adig dooqaaga ah ilma aha meesha inaysan nololka imaanayn inay tahay ganacsi sababta waxaa anigan u leeyahay waxay tahay qofka nolosha aad la sameynaysa adiga dooranaya in lagu dooro ma aha in aad dalbatid ma aha waa inaad noloshaad wadaagtiin qofka waa inaad waxyaabo badan aad la sheergaraysiin waa inaad waqti qaadatiin waa inaad wax walba isku fahmi kartiin qofka mar walba bini aadanka ah ma wanaagsano in mar walba hadal wax loogu sheego waxa jira baaqitaan ay leeyihiin dadka qaar oo aad isugu dheereeya xitaa sunniyaha iskala hadlaa soma marka waxaan aaminsanahay hadday nolosha heerkaas ay gaarto inay tahay qaab ganacsi ah waxa wanaagsan haddii aad u baahan tahay inaad nolol samaysid qofkaaga aad dooranaya laakiin haddii aad doonaysid inaad lacag aad heshid dabaan 60 jirkaaga guursanaya taa shaki kuma jiro taas ayaan leenahay gabadhaas marka maxaad kula talin lahayd inay 60 jirkii ay guursato ama 20 jirkii oo jeebka marana laakiin jaceelka uu garanayo sida ay ku sheegtay horta qof haduuba jaceelka wax ka yaqaano oo waa qof nolosha fahansan dabcan waxaan jeclahay qofka nolosha wax ka fahansan ay dareemi karto qalbigeedana dhihi karo alla ilaahay qofkan wada noolaan kartaa noloshaada uu samata bixin karaa qofkaas ay la wadaagi kartaa taasi waxa wanaagsan in qalbigeeda su'aasha kaliya uu weydiinayo inay jawaab ay washo qofka qalbigeeda ku qanacsan yahay inay guursataa wanaagsan taas ayaan leeyahay oo ma santahay wiilkan Cabdi uu magaciisa ku soo sheegay wuxuu leeyahay
jacaylka guurka ka hor yimaada iyo kan guurka kadib yimaada keebaa wanaagsan? horta Cabdiraxmaan oo qofkaaga waxaa wanaagsan inaad nolol bannaanka ku soo qaadatiin midna gurigiina ku qaadatiin haddii nolosha bannaanka aad isku fahmi weyseen nolosha guriga iskuma fahmaysiin sababtoo ah shayga dareeska ama dharka xiranaysid markaad soo qaad ka soo iibsanaysid waa inaad isku baroobaysaa waa inaad dhar ahaantiisa bilicdiisa muuqaalkiisa waa inaad fiirisaa soo si fiican qofka nolol sameynaysid waxaa rabtaa inuu ubad gabadhan ay ku dhasho aan nolol wada qaadatiin haddii bishayga markii hore uusan ku qancinin ma kula tahay nolosha guriga inuu ku qancinayo jawaabtu waa maya waxaa wanaagsan dadka lamaanaha nolosha wadaaga inay marka hore iska adkeeyaan nolosha bannaanka taas markaad la soo qaataan ay nolosha guriga wadaagi karaan marka ma aaminsan dadka nolosha bannaanka soo wada qaadanin inay sameyn karaan nolol guri inay sameyn karaan sababtoo ah maamaha waxay leedahay awlaad jecel ugu dhalisadooda wadgoonkooda aad ka garataa lama dhihin yacni dad walba oo isguursado waa maamahdiisa ka tarjumaan lamaana dhihin waxay ka hadlaysaa maamahaasi caddeyn ay u tahay dadka isdoortay ka hadlaysaa dadka isdalbaday ka hadlaysaa dadka isu samray ka hadlaysaa marka waxaa wanaagsan marka hore sameey oo nolosha guurka ka hor sameey taas ayaa la dhihi karaa marka tan kale oo guurka kadib yimaado waxaa la dhihi karaa isu siismo iyo waxyaabaha xishmada ka dhalata iyo wax danta ay ku keentaa jirta taasun baa la dhihi karaa marka laguma tilmaami karo jacayl tan anigaan aaminsanahay wayahay waa mahadsan tahay wiilkan magaciisa wuxuu ku soo sheegay Cabdilcasiis aniga jacaylka in badan wuu igu soo dhacay gabadhii aan jeclahayna qof kale ayaa lagu dari rabaa maxaad igula talin lahayd maxaan samaynayaa maadaama gabadhiina aan si xadaaf aan u jeclahay horta uu calafka sidiisaba jacaylka sidiisaba calafka ayaa ka weyn shayga haddii alla xaggiisa uu kaaga qoran yahay inaad adiga tashid laazim waad helay laakiin hadduusan kaaga qornayn ma helaysid inta badanna qofka noloshiisa koowaad ama jacaylkiisa koowaad 90% aad u guuldaraysaa haddayba labada qofood daacaday tahay ayna ka go'an tahay dadna wuxuu soo wajahaa xilli ay yar yihiin oo aysan awoodi karin marxaladaha qaar ay ku jiraan inay iska bixiyaan marna wuxuu qofka soo wajahaa dhan dhaqaale xageeda oo qofka markuu ku yimaado ay ku adkaanayso soo markaasi marxalada uu taagan yahay oo kaga samata bixi lahaa waxaan oran lahaa kulli horta wax la wakiisho alla ugu wanaagsan sigana ugu wacan sababtoo ah wax walba waxa laga xukumaa awoodda naga sareysa marka allihiisa inuu aamino oo ku kalsoonaado inta dadaalkiisana uu dadaali karana uu dadaalo hadday calafkaaga tahay waad helaysaa haddaysan calafkaaga ahayn kulley xagga sare ma lagaaga qorin soo maaha laakiin isku day niyadaada geli ku dadaal inaad helaysid haddii aad ku dadaashid macquul inaad heshid sababtoo ah try is better than not try qofka aanad dadaalin waxaa ka wanaagsan qofka dadaalaya soo maaha marka inaad dadaashid muhiima marka haddii aad guuldaraysid xitaa guusha ku dhawaatay waxay noqonaysaa taariikh ku cajab gelinaysa markii dib loo eego inkastoo 90% oo cashaqa saxda marka la fiiriyo ay guuldarada ay u dhowdahay marka dadaal ayaan leenahay yarka wayahay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan soo gaarnay aad baad u mahadsan tahay su'aashan waxay dhahaysaa waxa soo dirtay gabar iyaduna ay naga codsatay in magaceeda aan la shaacinin waxay dhahday nin baa ay qabo ninkaygana waa isma fahanno anigana aad baan u jeclahay maxaad igula talin lahayd ma iskala noolaadaa ruuxantii waxyaabo fara badan ayaa jiro laakiin noloshii qofkii aan jeclaa maxaan noloshaydu aan samaynayaa horta Cabdiraxmaan oo isfahanka sidiisaba nolosha ku dhisan haddii aan isfahmin waxba ma hagaagaa barashada isfahan ay ku dhalataa ismaashada sidoo kale hadday dad hal meel ay ku wada nool yihiin waxaa muhiim ah dadka inay isfahmaan hadduusan isfahan jirin waxba ma hagaagaya isku day si walbo ay kugu qaadato inaad qofka adiga marwadiisa adiga tahay inaad fahantid haddii aadan isfahmin waxba ma samayn kartiin haddii aad isku tagdiin oo macnaha yani aad isku daydiin inaad samaysiin inaad isfahantiin oo isfahmi kartiin gacmana sidoodaba wada jiri wax ku gooyaan idinkoo lamaana ah ma weynaysiin qaab aad isku fahantiin xeer samaysta tantable samaysta dhaqan samaysta haddii aad idin qorsheysan tahay inay nolosha markaa heer aad ka gaartaan aad doonaysaan marka taas ayaan leenahay gabdhahaas iyo wiilkaas ayagana axmed eeg aad baad u mahadsan tahay waxaanu halkan kusoo gabagabeynaynaa
barnaamijkii su'aal weydiinta oo marti noogu ahaa maxamed cabdiraxiin maxamed Sergito waxaad ka daawanayseen YouTube channelka Lamane Foundation. Cabdiraxmaan baa barnaamijka idin soo saaray waan idin la socodsiinayay. Su'aalihiina waxaad ku soo dirsan kartiin WhatsApp-ka lambarka shaashada idinka muuqdo ayaad ku soo dirsan kartiin. Su'aalihiina waa idinkaga jawaabi doonaa intaynu dib u kulmi doono barnaamij lamid ah. waxaynu idinkaga tagaynaa dhammaanteena isku duuban. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.